بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaa soo kordhay 24 saac ugu dambeeyay 47 case oo ah xaaladood oo ah COVID-19 positive. 47daas qof 42 kamid ah waa rag, 5 waa dumar. meelaha ay kala joogaan Puntland waxaa laga helay 19, Banaadir waxaa laga helay 13, Somaliland waxaa laga helay 8, Koonfur Galbeedna waxaa laga helay 7. da'ada dadka laga helay ay u dhaxayso haddaan dul maro 20 sano wixii ka yar waa eber qolkiiba 20 ilaa 39 waa 43 40 ilaa 59 waa 43 60 sano inta ka weyn waa qolkiiba waa 14 sano. tirada guud ee dadka laga helay wadanka waxay gaaraysaa 1502. waxa u geeriyootay 2 qof, Ilaahay u naxariisto, qof Banaadir jooga iyo qof Somaliland jooga. tirada guud ee dhimashada waxay isugu tagaysaa 59 xaaladood, Ilaahay jannada ha ka waraabiyo. waxa ka bogsaday 15 qofood. tirada guud ee bogsashadana waxay isugu tagaysaa 178. walaalayaal aan ku dadaalno inaan xakameeyno cudurka, inaan iska ilaalino wax allaala qatarta ka dhalan karta cudurkan waa halis. haddii la xakameeyo waa lagu guuleysanayaa in ma aragtay meelaha ciriiriga la iska ilaaliyo, in afka la xirto markii la baxaayo, gacmaha in la isaga dhaqo saabuun iyo waxyaalaha loogu talagalayo nadiifiska ah lagu dhaqdo, in meelaha ciriiriga laga joogo, in qofka haddii uu calaamadihii arko inuu wacdo nambaradii loogu talagalay oo la siin doono talooyin iyo waana wax walba ku aadan. in ma aragtay dadka waaweyn oo cudurrada raaga qaba si xanaano gaar la siiyo. qofka haddii uu fahmo qofka la jooga inuu leeyahay calaamadihii wax u dhow cudurka, in ma aragtay laga feejignaado, qofka gooni loo haayo, loo waca nambaradii, lala taliyo, uu raadsado meesha ugu horeyso caafimaad. dawladdu waxay ku dadaalaysaa inay sii badiso awoodeeda baaritaan la gaarsiiyo wadanka dhan si xawli ah loo keeno mashiinadii loogu talagalay. oo dadaalkaas jira, laakiin bulshadana waajibka saaran waxa waa inay u nuglaato, ay maqasho talooyinka caafimaad la siinayo si ma aragtay cudurka aan uga guuleysano haddii alla idmo. waxaan isula dardaarmaynaa aan dadaalno. Ilaahay hana garab galo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.